رمضان waxay degan balcad oo xamar u jirto xamar asalkeeda xamar waxay ahaayeen mataan iyo reer banaadir ahaayeen gobolkan dadkii alla ku beeray baa iskale dadkaas ayaa iskale iyaga leh wixii oo matalaad aan iyaga yeelanay ma jiro wax Soomaali ka dhaxeeya dadka meesha degan oo labadan nin ah ani waxaan u qarsanay 80% inay ku leeyihiin caasimadu waa caasimadii dalka weeye Soomaaliga caasimadii ummadda Soomaaliyeed weeye dadna deegaan bay u tahay asala ayay u tahay dadna muxuu ahaayay ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa wada dhisatay oo wada leh oo wada degan Soomaali garan 1969 wixii ka horeeyay ay isku guriyo tirsanno daarood baa wax ku leh dir baa wax ku leh oo kursi laakiin waynan u sinaanay shaashu baash waa sax dad badan oo anaga maantay magaaladan iskale ama anaga xaq kula dhahaya hadii xilligaas loo laabta ayaan waxba ku yeelanay ma ku sheegay way ku yeelanayaan sababtoo ah wax imaanaya hadda su'aasha weydiinaysa yaa qaybinaya way aniga yaa qaybinaya marka la dhaho sanatarada ka soo baxay galmudug yaa qaybiyay madaxweynaha meeshaas qaybiyay kuwa ka soo baxay koonfur galbeed madaxweynaha Puntland kan madaxweynaha qaybiyay inta waxa qaybinayo gudoomiyaha gobolka iyo dadka u dhashay oo odayaasha u ah oo meesha jooga period baasho in la saaro ma laakiin kaliya ani waxaan aaminsanahay in loogu daro theory 1991 dadkii ku soo qaxay oo 30 sano iyo ka badan deganaa xuquuq bay ku leeyihiin haddaan 30 sano muqdisho aan deganaa xaq baan ku yeeshay marka in loogu daro 5 kursi oo extra ah iyo 6 kursi oo extra ah dadka intay soo aadeen deegaankooda noqday waxaan saa ku leeyahay oo minority-ga ku ah waa in kursi helaan hadda Ilhaan Cumar ayadoo Soomaaliyada oo aysan ku dhalan bay Mareykan minority kursi ahaan ku heshay mideeda kale aan horta inta waxaan ka cambaareynayaa Soomaalida sideedaba oo mas'uuliyiinta oo siyaasiyiinta ah laba waxyaalood baa iska qaldan Soomaaliya 4.5 baa wax lagu qaybsaday qabiil baa wax lagu qaybsaday laakiin meesha kaliya oo lagu xadgudbay oo uusan madaxweyne ka hadlin oo uusan siyaasi ka hadlin oo cadaaladdan loo qaybin waa aqalka sare si xaaraan oo qeyr sharci ku dhisay muqdishona waa qasab 17 ugu yaraan inay qaadato 13 inkar iyo dadka degan hala haraan laakiin dadka deegaanka la lahaa oo la deganaa ani waxaan aaminsanahay 1969 wixii ka horeeyay guriga ikra hala tiri haaf hadaan lahaanin oo aanan ku yeelan de markaas ay tahay hal diido laakiin ani waxaan aaminsanahay dadkii degan dad badan oo kursiga meesha ka soo jeeda aqoonini Puntland ka soo jeeda aniga kursiga Puntland ka soo jeeda halkaan qaybood ku lahaa kartaa laakiin waxaan kaaga wadaa yaan la dhihin day madaxweynaha dad baa hatta isku qaldaya madaxweynuhu reer buu matalaa kursigan qabiil buu ugu fadhiyaa ra'iisul wasaaraha reer buu matalaa gudoomiyaha reer buu kuraastan yaa qaybinaya horta in lagu wareero ma aha balaankan waay waxa degan baa qaybinaya ee kana iskale marka qaarkood Jaylani Nuur Ikar iyo marka la fiiriyo ragga kale magaaladan yiraahda annaga maantay باور ahaan iyo deegaan ahaan iyo wax walba joogan marka la eego iyaga waa deegaan ahaan waayahay deegaanka Nuur Ikaro Jaylani Nuur Ikaro mislo ogolna deegaankan adigu waxa tihiin dadka la yiraahdo waa way matalaada ugu badan xoog badan ay leeyihiin marka yaad magaaladan marka deegaanka la macnay maxay yaray xildhibaan Saacidi waxaan ku jeclahay hal arin waxa daahay ka qaada marka waxa rabaa in daaha laga qaado magaaladan yaad isla leedahay xaqi u leeyihiin in la siiyo oo waa deegaan yaa degan waa su'aal fiican maanta waxa ku celinaysaa hadii numberkaas la siiyo yaa qaybinaya waa very easy Saacidina waa xustay dadka deegaanka ah oo loo yaqaan deegaanka rasmiga ah oo baarlamaanka ku jira ayaa guddi sameysanayo waxay hor keenayaan baarlamaanka dadkii ma naqaana waa kuwa hada qabiil la ku sheegay ma deegaanka marka ku leeyahay fahamteeda deegaan fiiri hada maanta qodbada waxa ku jirtay ya sindiki ugu horeeyay xamar ah kii ku xigay wuxuu ahaa reer mataan kii ku xigay reer mataan oo kii ku sii xigay wuxuu ahaa sharaaf Idrisa saas ayay ku soo socotaa qodbada ku jirtay maanta okay 19 waxa kale ku jirtay qodbada 1968 doorashadii ugu dambeysay labada kursi xamarka soo galay waxa ay dadka deegaanka ah
dadka deegaanka marka hadda shaacanka qaadaya lama baahneen weliba laakiin hadduu mataqaana saaxiibkay ogolaada kolley waa shaacinaya maanta annaga banaadiri ahaan oo dadka indigenouska ah waxaan la kulanay maxaa la yidhahdaa qolada nala sheeganaysa ama nala degta maxaa la yidhahdaa gobolka waxaan isla qaadanay in banaadir dadka la yidhahda community-ga inay number 1 ka yihiin maxaa la yidhahda wixii ka soo baxa meesha meesha waa give and take waay ma garata haddii 13 la gaarsiiyo oo wixii aanay xaq markaas go-aansaday aan helo of course waxaan isku dayayaa beeshanaad cidda ka maqan inaan wax siiyo maxaa la beelaha kale wixii ka maqan laakiin waa markii aan dhergo waay markaan dhergo waxa iga soo har waa qaybinaya se uu qaybina taxta waxa iga soo har waxa waaye for example hadda ismaa xaaji wuxuu degaya afgooye u degaya afgooye waxay ka mid ahayd gobolka banaadir fahameysa ramataan waxay degan yihiin balcad oo xamar u jirto xamar asalkeeda xamar waxay ahaayeen mataan iyo reer banaadir ahaayeen mataan cabdulle iyo reer banaadir hadda siday sheegtay xildhibaan sacdiye waa lagu soo batay so xaq bay u leeyihiin ayagana in la tixgeliya laakiin gormaa waay markay anigii ogolaadaan horta inaan aan priority leeyahay kadibna waa la isla go-aansanayaa guddi baarlamaani oo hadda mataqaanaa oo labadaas group ah ayaa la sameynaya si isla qabna aan isla qaadanay in la sameeyo ay go-aanka gaaraan cadaalad ah that was our point waa maasantii waxaan rabaa adigu ma wax ka dhahaysad waay banaadir loogu diidaa dadkooda inay iyaga intaas kala yeeshaan maxaa diiday waa su-aasha intaan meesha maya kala saa banaadir maxaa diiday banaadir marka intaa loo sheego caasimadda soomaaliya baa iskale caasimadda ummadday ka dhexaysaa waa muqdisho weeyaan waa xamar waaye waa dhul la yaqaano oo caasimad ah statuskeeda iyo waxa sida loo maamulay iyo dawladda federaalka oo degan iyo siday iyada ugu maayarka ugu magacaabayso iyo siday iyada maxaa ku canshuuraadka iyo loo qaybsanayo taas waa dawladda federaalka kala dhaxaynaysa iyo ummadda wada degan laakiin gobolka banaadir waa sad halkaas loo dhigayo dadka uu Jaylaani sheegay waa macnaha dadka deegaanku ikar deegaan uu ka soo jeedaa dadkan kale oo maalmahan shirayo oo aadka u shirana waxa weeyaan way hadlayaan marka nuur ikar tii uu yiri anigu waa inaan marka hore qismadeyda fiican aan helaa ka bacdina adinku kaalinta labaad ku jirtaan Soomaa maanta uu sheegay waa la wada kulmay sideedaba dad markay heshiis yihiin walaalo yihiin adir waa matalaad meeshaan cid wax kala qaadanaysa ma jiro waxa waa matalaad waay wax dhexda la dhigaya wuu ka talinaa waa isaga qaybin ilaahay oo maay walaalnimada dadka deeqdo qasamaha in dadku dhan Soomaali wada gaarto ma waayahay waxaan kaleynaa doctor cilmi waxaan kaleynaa waxa tiri maqaamka muqdisho iyo sharciyadiisa ka horeeya wax walba maqaamkan muqdisho hadda sida ay guddiga hadda la sameeyay ay soo jeediyeen waxaan maqlay in 3 arrimood ay keeneen oo ah in degmo caasimad ah laga dhigo iyo in muxuu ahaa maamul goboleed dawlad ku dhex taalo in laga dhigo iyo in laba gobol macnaha la isku daro oo macnaha saas laga dhigo ilaa ma shabeelle lagu daro marka arrimahaas ay yiraahdeen marka sideeba marka maqaamkii muqdisho lagu heli karaa maqaamka muqdisho runtii waa arrin historia weeye oo muxuu ahaayay qodobka 9aad aad u cadaynay taasina wuxuu waajibinayaa in muxuu ahaayay labada gole ay sharci ku soo saaraan sharci markay ku soo saarayaan muqdisho hadda waxay ka mid tahay ku dhex jirtaa gobolka banaadir ayay ku dhex jirtaa marka qodobka kale muxuu ahaayay 49 isna wuxuu qeexayaa marka dawlad goboleedyada la dhisayo in baarlamaanku ay tahay waliba golaha shacabka ay tahay waajibaadka golaha shacabka inay dhisaan muxuu ahaayay xuduudihii maamul goboleedyada ee dawlad goboleedyada inay dhisaan guddi arrintaa ka shaqeysa oo sharciyadeedana sameeya guddigaasi waa inuu asteeyaa xuduudaha ay kala leeyihiin gobolada iyo muxuu ahaayay dawlad goboleedyada iyo standardka macnaha muxuu astaynta qaabka loo dhisayo sida u buuxinayaan shuruudihii oo dhan marka sharciyadii taas oo dhan waa inay dhamaystiraan markaas waxa kala baxaya gobolkii banaadir iyo caasimadii inay kala baxaan
markii gobolkii banaadir uu dhismo oo maamulkiisa leh oo doorashadiisa leh oo nidaamkiisa leh oo dadku doortaan dadku soo doortaan oo la mida muxuu ahaay sida ama mogtahay haddii dee dowlad goboleed loo aqoonsanayana dowlad goboleed noqdo ama haddii gobol ahaan loo daynayana gobol ahaada muxuu ahaa horta lasoo dhisa weeye taa markii la sameeyo baa caasimadiina haddana xuduudaheegii caasimaddu waa inay gobolka banaadir ka duwanaataa oy leedahay xuduudaheega iyo astaynteeda iyo maqaamkeeda ay leedahay mogta taasoo ah muxuu ahaayey soomaali waa meeshii ay soo muxuu ahaayey wada keentay gobonnimadii soomaaliyeed ay keentay weeye marka representationku wuxuu noqonayaa inay matasho soomaali oo dhan ay matasho ayay caasimaddu noqonaysaa oo ummadoo dhan soo dugsato dabcan waa suuragal oo waxa weeyaan deegaan haddana asal ahaan dad baa sii degan mogtahay dowlad ahaan iyo shucuub ahaanna qarankii bay matashaa marka maqaamka ay yeelanayso iyo tirada ay ku yeelanayso matalaadda ay ku yeelanayso oo dhan waa in la xadido wey sharcigaa markaa muxuu ahaay uu dastuurku sheegayo oo labada gole inay sameeyaan ay tahay ayaa arrimahaas markaasi lagu xadidaya marka aqalka sare waxaan ka wadaa muxuu ahaa caasimaduna waxay yeelanaysaa matalaad bay yeelanaysaa gaaray leedahay waa adduunku waa sidaas wey caasimadu waxay leeyihin matalaad bay leeyihin inkastoo qaarkood ay leeyihiin matalaad muxuu tashriifi ay leeyihiin laakiin qaarkood matalaad rasmi ay leeyihiin oo muxuu ay ka uga mid noqdaan xubna ku yeeshaan aqalka sare ku yeeshaan senatka ay ku yeeshaan markay sidaa noqoto markay hal arrin macnaha inta badan haddii la yiraahdo maamul goboleed caasimadiina ah dawladduna ku dhex shaqaynayso haye hubinaya arrinkaas waxa weynio article-ka 9aad wuxuu leeyahay caasimadda Soomaaliyeed waa Muqdisho waxaana xeer gaar ah ka soo saarayo baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa xeer wuxuu leeyahay waxa go'aan looga gaarayaa dib u eegista dastuurka aad u dhageyso waxa go'aan looga gaarayaa dib u eegista dastuurka waxaana xeer ka soo saarayo golaha labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya qodobkaas waa cad yahay aan ku siiyo marka baarlamaankii 9aad ay marin cariif guddigii dastuurka markaas ma jirin aqal sare wuxuu ahaa labadii shaqo waxa isku qabanayay golaha shacabka waa markii ugu fiicneed oo runtii dastuurka amendment fiican lagu sameeyay waan isqa qabsi jirin guddiga tobanaad guddiga markii la saaray guddiga baarlamaanka waa waxa ma keenay waa guddi baarlamaanka oo labada aqal ka kooban waa aniga ka mid ahay oo Cabdi Qaybdiid gudoomiye ka yahay oo 5 senator aqalka sare iyo 5 golaha shacabka ay ku jiraan dastuurka waa isaga kan cadeynaa 3 option iyaga keenay kama hadlayo hadda kii hadda doorashooyinka kaas maqaam kama hadin haddaba kaas maqaam ma soo qaadi karo laakiin marka kaas matalaad buu soo qaaday marka laga hadlayo oo la yiraahdo ilaa saddexdan arrimood baa la soo jeediyay magaaladan haddii la rabo haysta saddex arrimood iyaga ma soo jeedin waayahay saddex arrimood dastuurku waa maasantahay xildhibaan Sacdiyo waxaan rabaa inaan ogaano magaaladan maqaamkeeda marka la samaynayo waxaa la isku hayaa laba arrimood laba dagaal socota dagaal dhahaya magaaladan magaalo Soomaaliyeed waaye ummadda dhana wada degan cid gaar oo yeela karta ma lahan sida daraadeed haddii la qaybsanayo waa in gobolada sideedii loo qaybiyaa qola saanay leedahay qolana waxay leedahay maya Puntland say u qaybsatay iyo galmudug macna say wax loo qaybiyo ayaa intana dadka degan wax loo qaybina marka labadaas arrimood say loo kala saari karaa hadda intii oo xildhibaanka oo uu ka sheegay weeye qodobka 9aad iyo qodobka 12aad hadaan qaldanayn labaduba waxay qeexayaan maqaamka iyo waxay kala qeexayaan iyo magaalo madaxda Muqdisho waa magaalo madax hadaan aniga dhaho magaalo madaxda Muqdisho leegama xigo sababtoo waa magaalo madaxda Muqdisho laakiin maanta midda doodeeda loo taagan yahay waa yaa matala maxaa la dhahaa maya gobolka banaadir ilan gobol walba wixiisa asaa iska leh labada adii hadda ha isku keeni hadda waxa anaga meesha u fadhinaa oo bari laga doodaya oo maanta laga doodaya waxay ahayd yaa matala gobolka banaadir marka gobolka banaadir waxa ka soo baxana waxa matalaya dadkii lahaa waxa ana matalaad u fadhiyo sababta waa sanataro waxa ilaa hadda inaga ka hadlayno aniga sanatariskaygii haddaan deegaan meesha ku leeyahay oo aan xaq u leeyahay waxbaan la qaybsanaya oo beesha shanaad baana haddii aan ahaa for example oo qaybo kale anigu horta mid baan aaminsanayn haddii la dhaho cid kale ma degto iikar iyo xildhibaankan cid aan ahayn I don't believe it dad baa deganaa guryaha hal isku tiriya baa imaanaysa
haddii guryaha la tiriyo 1969kii wixii ka horreeyey aynu isku guryo tirsanno daarood baa wax ku leh dir baa wax ku leh oo kursi laakiin waynan u sinaanayn shaashu baash waa saa hawiyana uu lama sinaan aniga horta waxaan jeclahay bahalkan muxuu ku dhisan yahay maya dad iyo guryo waa la xisaaminaya aynu runta ka hadalno fiiri markaan ka hadlayno dastuurka Soomaaliya waxa lagu saleeyay waa qabiil 4.5 laakiin iikar wuxuu rabaa in uu wixiina sheego uuna ninkii dawaanin gudoomiyaha wixii ka warwareego abo helan wuxuu rabaa hasha miiska inta la saaro Soomaaliya 10 years baan deganahay waxa ragga halka keeneen oo Soomaaliya waa qabiil 3 sano qabiil aan ku dhisanahay maanta meesha baasha loo fadhiyo oo 14 gudoomiyuhu uu yiri ani waxaan aaminsanahay in laga badiyo haddaadan maanta ka badina 14 waxba ku leenahay marka you have a chance ina idinku inta badisaan dadku waxa idin la leeyihiin halka iska dhigta sababta waa la wada degan yahay let me finish dhagayso maanta dhana hadlayseen ana xataa dumar ah iyo aniga oo kaligeeya marka hadalka ii daayay mida aan rabaa inaan hadda cadeeyo dadka meesha degan oo labadan nin ah ani waxaan u qarsanahay 80% inay ku leeyihiin go'aanka inay leeyihiin 80% kuraasta ka soo baxaysa 80% 20 kale laakiin dad baa la degan waa ina qirtaan ha waa ina dhahdaan laakiin yaa qaybinaya korsi inuu ogolyahay misaga diidi kara waa aniga daayay حسن عده وأقولها واحد عاوي يقرأ هذا نسوي أنت أسوية وأقولها وحنا أقولان وفيري هذا جيبي الصوماليين وضعنا أنا عاوة قروة دقيقة بيزنس كفرنيا قرية كدسنا ونولا عندي قاعد كتاب جد شرعي إسيني لكن ما ملكيده إيو دولة ده إيو حدا ضد بي وحوتها وماشى فيدراليزم بالقاطي غير ضد كاس معمولي أنا لك عشور بحني يا مايا كم ودي معني وحكوا ذا هرجيس دايا كسمايا دايا بيدوان وماله دو كجيران لكن وحكوا ذا ضلك مقدشو مركلي عاصمة اللي هذا الصومالي ودنبا عياله قبل كبنادر مركلي وسي سعدية شاكتي والله كلا بدنا كرا لكن قبل كبنادر ضد با إلهي كو أبوريو كدلي ما لا ودي كراي ضد كاسانا كتلني محايل فير الدولة قبل يدي ذا كله دول الكودية كتشد أرتكل بقولي لبعضهم وحوليه هاي دولة قولات حكومة دي برلمان كذا الدستور كذا يكون رقم يساوي تنا سيدو كلا الدستور الله سمينا وضد يلا ناس والله يكون رقم يساوي وحال قامي برلمان كاستقالات يعني عاصمة نقطة مقدشو أي نقطة ستيت وحكليه لنا إن برلمان كلا كينا ولا قدوا الأنصحية عاصمة بركلا أمضى سكان حيستا ستيت بركلا قول كبنادرنا ولا كلا ليه تاسع له حكمة the best option لقاته واي برلمان كاستقالات وهرجنا واي برلمان كتبنا دواب كنا بحاول نبيسنو هنا محلي هذا حقي أي لهاين ذاتك الديجانك أو مثلا حقي كل هاين مثلا دود على لا هي مثلا آخر سنة